wafdi oo horkacayo hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani Xirsi Cali Xaaji Xasan oo muddooyinkii ugu dambeeyay ku guda jiray safar ay ku dardargelinayaan howlaha xisbiga ayaa gaadhay deegaanada Xood, Xayira, Ilka Cadays, Balli Rooble, Warta Beyle, Ceeldheere iyo degmada Gebageba oo ka tirsan gobolka Togdheer. waxaanay wafdigani shacabka kala kulmeen soo dhaweyn ballaaran. odayaasha waxgaradka iyo haweenka deegaanada ay wafdigani mareen ayaa ballan qaaday inay codkooda iyo cududoodaba la garab taagan yihiin xisbiga isbaldadoonka ay wadani. shan boqol baa loogu ballan qaadanaa laga qaadi jiray. shantii boqol waxaan ku rajaweynaa haddii wax naga taganayna konton naga tago afarta naga tago wax ka badan aanay naga tagin. waqtiga yare ka haray doorashada waxaan u fulinaynaa dhaqameedka iyo sida aan howlaha iyagu u xallinayna waxay noqonaysaa tashkiilan tii kordhinaya waanada waxaan u filaynaa intan ma ahaana inta yar naga maqnaan lagu soo biirto soo saa maaha. halkan dadka jooga jeew ha ka warwarina codka ha ka warwarina ololaha ha ka warwarina soobaxa ha ka warwarina kalsoonida ha ka warwarina isu geysta. aniga oo ku hadlaya afkii tuulada Ilka Cadays ku soo dhawaada hogaamiye deegaankiina Ilka Cadays ku soo dhawaada dhammaantiin. waxaa la idinka doonayaa cod horena waa ballan qaadeen caawana waa la idinka doonayaa ballan qaadaan. wadaniyo maanta mucaarada lacagtii baanu ka qaadanay waa naloo dhisayaa waxaanu leenahay codkayagana waanu siinaynaa siiyey isagaan meel ba haysan dee codkiina siiya oo dee diyaar bawtiin oo siiya. odaygii cid buu ku wareejiyey xilka Soomaaliland wax yarad loo bixiyo ka weyn qarannimada Soomaaliland wax yarad loo bixiyo ka weyn cidna la yarad looma siin karo. marka nin walba aqligaaga dee ka shaqaysiyo cidda dani kugu jirto raac. annaguna haddana deegaanka ugu feediyo iyo degmada Gebageba waxaan codkayga siinayna oo la soconnaa wadani xisbiga wadani. hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani Xirsi Cali Xaaji Xasan, siyaasi Muniir Axmed Cigaal iyo qaar ka mid ah cuqaasha deegaanadani ay waftigani mareen ayaa bulshada deegaanadan uga mahadnaqay soo dhaweynta ballaaran ay ku qaabileen waxaanay kula dardaarmeen inay codkooda siiyaan xisbiga mucaaradka ee wadani. waxaan halka u maraynaa insha Allah taala inaanu dadkana ogaano xaalkiisa codkana weydiisano waxaanu u qabanaynaa u sheegno mustaqbalka marka dawladnimadii timaado waxaanu ku talagalaynaa oo insha Allah taala halka ka sheegayna inaan wixii wax qabad ahaa biyaha insha Allah taala systemkooda waxaan ku kordhinaa inaan ka shaqaysiino beeraha waa insha Allah taala waxbaanu ka qabanaynaa wixii ahaa adeegyada bulshada dhamaantood wixii aanu ka qaban karaa wadano saacadaan ka qabanayna. isbedelka noocaas ah wadano taagan yahay soo codka siin meeysan wadan insha Allah taala waa kuwa xidhan xafiisyada dawladda Soomaaliya soo dhamaantood ma xidhna waa kuwa soo mid shaqeynaya ma jiro. markii horena saddexdaa ka dhisanba qofkii saxeexay soo halkan inaan degbaba laga dhigin saxeexay baan ahaa qaar baa halka dhusleeyo yaada degmada Xirsi baa diidana inta laga dhisayba hay yimaado hor yimaado ninka Xirsi ma dhisin. waxaanu wax ka qabanayna marka ugu horeysaba dadka barakacayaasha ee xoolahoodii ka baxeen ee meel walba kaamka ku xareysanay halkan Gebagabana jooga ayaanu wax ka qabanayna. masaajidka ay noola yimaadeen deegaanku ee guudka qaawan masaajidkaana ilaaha guusha bixiya ee madaxtinimada bixiya iskala beedka waa dhisayna isagana insha Allah taala waa dhameystirayna. deegaanka Gebagabada aad iyo aad baad mahadsantihiin sida wanaagsan ee aad xisbiga wadani u taageerteen noola qaadateen noo soo dhaweyseen odayaashiina hadaatiin haweenka iyo guud ahaan dadkii magaalada ku noolaa waxay cadeynaysaa dadku inuu isbedel doonayo dadka deegaankani wadani waa xisbigii shacabka oo wuxuu ku dadaalayaa in cid walba xaqeeda ay hesho. si deegaanka ku soo dhawow magaaladaada iyo dadkaagii ku soo dhawow codkooda ku soo dhawow. waajib inagu ah haddaynu deegaanka nahay inaynu xisbiga codka siino sidii aynu u shaqayn jiray si labanlaabkeed leeg baa laynaga doonayaa. maanta haddaynu guulaysano oo xisbiga wadani soo saarno waxaynu gaaraynaa halkii aynu doonaynay. waxaa kulmiyaanu ku soo saaray Axmed Maxamed Siilaayo wuu ka tegey mar hadduu ka tegeyna kiina kadeen inoo ku jirto maynu soo saarayna ilaa ku soo saaray ka tegi waxaanu leenahay kaasuunbaa maanta inoo ku jirtaa. Axmed Salabaan Carab Axmed Kaafi Bulsha TV Burco.